بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan intii igu horeysay ee mas'uuliyiinta kala duwanaa ee u tacsiyeysay dhammaan intii ay wax ku soo gaareen shaqaaqadii ka dhacday magaalada ganacsiga ee Boosaaso oo isugu jiray mas'uuliyiinta dawladda iyo waxgaradka kala duwan ee Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba ee uga tacsiyeysay intay wax gaareen. waxaan aniguna maanta caawa rabaa inaan ku biiriyo in Ilaahay u naxariisto intii halkaa ku dhimatay, u boogadhayo intii ku dhaawacantay, uga tacsiyeeyo intii waxyeelada kala duwan ay ku soo gaareen iyo inta barakacday ee bulshadii magaalada Boosaaso. waxaan la qaybsanayaa xanuunka muddadii hadda shaqaaqadu socotay aan la qabay oo habeen iyo maalin ula soo jeeday sidii arrintaa loo xakamayn lahaa. waxaan u rajaynayaa magaalada Boosaaso oo ah magaaladii la magac baxday Boosaasodii nabadda, Boosaaso deeqa, inay nabadeedii ahaato. waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka kala duwan ee reer Puntland, gaar ahaan kuwa hadda ku sugan magaalada Boosaaso, inay ka shaqeeyaan nabadda, inay ka shaqeeyaan xasiloonida, inay ka shaqeeyaan in magaaladu ay ku soo noqoto sidii dabiiciga ahayd. sida horay ay dawladdu marar badan u cilaamisay, dawladdu dadkeeda dagaal kuma wado, diyaarna uma aha inay bulshadeeda dhexdiisa ay xabad ka rito. ciidanka dawladdu waxay u dhisan yihiin oo sharci ay ugu dhisan yihiin inay ilaaliso nabadda iyo ammaanka bulshada reer Puntland. waxaan halka uga baaqayaa dhammaan dawladda, horena u amarnay in ciidan dawladeed xaaladda hadda Boosaaso ka jirta uusan xabad ka ridi karin, ku sugnaadaan goobahooda, qabsadaan shaqooyinkii sugidda nabadda ee caadiga ahayd ay hayn jireen, ee booliisku hayn jiray. waxaan halka baaq uga dirayaa dhammaan dadkii barakacay ee ka maqan magaalada Boosaaso inay dib ugu soo noqdaan guryahoodii. waxaan dawladda sida aan horay ugu saarnay guddiyada ka shaqaynaya ee heerarka kala duwan ah, heer gobol, gobolka bari, degmooyinka Boosaaso iyo Carmo, iyo degmooyinka kale ee dadkaasi gaareen, mas-uuliyiinta ka shaqaynaysa iyo mas-uuliyiinta wasiirada ah ee maanta ku howlanaa sidii dadkii barakacay ay u gaari lahaayeen oo wasaaradda arrimaha guduhu ay hogaaminaysay. waxaan iyagana farayaa in ay gargaarka bini'aadanimo ay wadaan ay sii kordhiyaan, iyaga iyo dadka muxsiniinta ah ee ganacsatada ah ee gacanta ka siinaya. waxaan rajaynayaa bulshadaasi inay goordhow ku soo noqoto deegaanadoodii, guryahoodii oo nabad ah. waxaan halka u sheegayaa dadka in dhammaan hay-adaha dawladda, iskuullada, jaamacadaha, xarumaha caafimaadka dib ay u shaqay galaan birito oo ugu horeyso dekedda magaalada Boosaaso. waxaan halka runtii ka caddaynayaa brobagandada faraha badan oo dadka khalkhalka gelinaysa in laga daayo, in nabadda laga shaqeeyo, in nabadda loo hiiliyo. intaa markaan ka tago, waxaan rabaa halka inaan uga mahad celiyo dhammaan waxgaradkii kala duwanaa ee isugu jira isimada, culummada, cuqaasha, mas-uuliyiinta dawladda ee ka qayb qaadanayay sidii magaalada nabad loogu soo dabaali lahaa, qalalaasihii dhacayna loo soo afjari lahaa si nabada ah. iyagana waa uga mahad celinaya dadaalka ay qabteen. waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee Puntland oo ku howlan inay ilaaliyaan xasiloonida iyo kala dambeynta, ilaaliyaan sharciga iyo dawladnimada. ciidamada kala duwan ee ka qayb qaatay
ee geesiyaasha ah sidii ay u sugu lahaayeen nabadda dalka waan u mahad celinayaa. waxaan u mahad celinayaa ciidamada BSF ee runtii gartay waajibkii loo igmaday inay gutaan oo uu madaxda ka yahay Generaal Amiin Xaaji Khayr, haddana ku sugan buuraha Galgala oo ah inay ka difaacaan Puntland la dagaalanka argixisada. ciidamada BSF shaqadoodii bay ku jiraan, waa ciidamo dawladeed oo hawshooda wata. waxaan ka xumahay dhaqanka aan fiicnayn oo dawladnimada u fiicnayn oo dadnimada u fiicnayn oo agaasimihii hore ee BSF uu xilka inuu ku wareejiyo uu ku diiday. arrinta maanta dhacday ayaamihii lasoo dhaafana sababtu ahayd. waxaa la wada ogsoon yahay warqaddaas beddelka ah inaan qoray 24-kii bishii hore, muddada intaa la eg maantana waa bisha 24-keedii. dhowr beri ka hor ayaa xabad u horreysay dalka ka dhacda. waxaan rabaa bulshada reer Puntland inaan la wadaago xaqiiqada dhabta ah iyo xaaladdii la soo maray. tikreetadaas markii ay soo baxday, dowladda Puntland sida caadiga ahayd ee ay u soo saari jirtay iyadoo dardar gelinaysa nidaamka dawliga ah, muddadii hadda aan xilka haynana ay ku jirtay inaan dib u habeen ku sameyno dhammaan hay-adaha dawladda si dabiiciya, si dalku oo hore ugu socdo. runtii waxaa naga hor yimid muddadii aan xilka haynay wax aan nagu dhicin oo ah in la diido isbeddelkaas. isbeddelkaa la diiday dabcan waa khiyaano qaran, waa xadgudub dawladeed, laakiin waxaan xeerinaynay xaaladda iyo dalka meesha uu marayo. muddo dhowr iyo 20 beri ah ayaa dawladdu waxay ka dharsugaysa inay hawshaas dawladnimada ah ay fusho. waxay mar walba u taagnayd tala kasta oo suuragal ah oo aanan wax u dhimayn nidaamka iyo dastuurka iyo xeerarka aan dhigannay inay dawladda Puntland ay qaadato. nasiib darro dadaalkaasi ma uusan hirgelin, waxaana aad looga shaqeeyey inuusan hirgelin oo carqaladii ay ka timaado sababo aan hadda ku talinayn inay yihiin sababo sax ah aynaan ahayn. arrintaas runtii waxaa ka dhashay in ciidamadii dawladda oo sugaya ammaanka, ilaalinaya kala dambeynta, in weerar lagu qaaday. weerarkaasna waxaa ka dhashay ciidamo in ay dagaal u ka dhaco. runtii dagaalkaas kooban oo ciidamadii gadoodsanaa iyo ciidamadii dawladda dhex maray, waxaan malaynaynay inuu intaa ku ekaanayo dhexdooda ah, laakiin waxaa nasiib darro dhacday in hoobiyaal magaaladii 4teeda koona loo qaybiyey oo dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka faraha badan ee soo gaaray magaalada Boosaaso sababay, iyadoo aanan qiil loo haynin. maxaa yeelay ciidamadii hor fadhiyey oo xabadaynaya ma aha, aaggii ma aha, sabab loogu rido magaalada oo nabad ah fasiraad bay u baahan tahay. waxaan rabaa inaan hadda ku fogaanin arrimahaas, maxaa yeelay dawladda waxaa ka go-an inay nabad qaadato wax kastoo dhacay. wixii dhacay waa dhaceen, sababahay u dhaceen anagu hadda ma rabno inaan dabagalno. wakhtigeeda iyo xaajadeeda wakhtigeeda laga qaybgalayaa, laakiin waxaan ugu baaqayaa waxgaradka reer Puntland inay u istaagaan dawladnimada iyo midnimada Puntland inay ilaaliyaan. waxaan u rajaynayaa isimada kala duwan, siyaasiyiinta dawladda ah iyo kuwa aan dawladdaba ahayn, madaxdii hore ee ka hadashay ee Puntland isaga dambeysay, madaxweyne Faroole iyo madaxweyne Cabdiwali Cali Gaas iyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, dadaalkooda iyo danqashadooda waan uga mahad celinaynaa, waana rajaynaynaa kaalinta ay ku leeyihiin inay qaataan. Puntland waa dawlad ka mid a dawladda federaalka. dadka deegaankan ay dhisteen 23 jirsatay, muddo fara badan soo dhismaysay, naf iyo maal fara badan soo galay, hanti dawladeed oo dadku wada leeyihiin ay soo gashay, iyo mid gaar ah oo shacabku leeyahay. waxaan qiraynaa ciidamada dawladdu qalabka ay haystaan qayb ka mid a xataa shacabku in ay gadeen. dawladdu waa shacabka. sababtay u gadeenna waxaa weeye dalkan in lagu difaaco, dadkiisa lagu difaaco, kala dambeyntiisa lagu difaaco.
cadowga maanta ay lahayd puntland oo jira waa cadowyo fara badan oo runtii si isku mid ah ay u difaacaysay oo ay har iyo habeen ciidamadaas ugu jiraan ilaalinta nabadda puntland oo dhul aada u fara ballaaran ah oo badkiisu dhan yahay 212 oo kilomitir oo qiyaastii 3 meelood Soomaaliya in yar oo ka maqan gacanta puntland maana inta kale waxa jooga ciidamo puntland leeyihiin maamul puntland leeyahay waxa ka socda adeeg dawladeed waxa ka socda kala dambeyn waxa furan saldhigyadii waxa furan maxkamadihii dadka reer puntland waxay ku nool yihiin marka Soomaaliya loo fiiriyo barwaaqo sooran iyo xasilooni marna kuma aysan gaareen hadday yihiin dad qoqoban hadday yihiin ciidamo kala tagsan hadday yihiin nidaam dawladeed oo mid ah dawladda puntland waxay leedahay dakhli hal ah waxay leedahay sharci mid ah waxay leedahay madax mid ah waxay leedahay ciidan mid ah intaas ayay horumar ku gaartay meelihii aan intaa lahayn waxa ka jira weyn ognahay qalalaasaha ka jira deganaansho xumada ka jirta iyagana waxaan rajaynayaa ilaahay uu ka qaado dadka deegaanada deganna ay gartaan inay danta guud ka wada shaqeeyaan puntland lagama filaynin maanta inkastoo marxalado qalafsan oo adag oo marar kala duwan ay soo martay laakiin marna waxaan laga filayn in tanoo kale ay dhacdo wixii dhacay waa ay dhaceen qadar bay ku dhaceen hadday taladeenu ahaan lahayd ma dhaceen laakiin xag ilaahay bay ka dhaceen waxaan ugu baaqayaa waxgaradka in arrintaas la daba qabto mar dhow iyo mar dheer iyo mar hore iyo mar dambaba shakhsiyan iyo dawlad ahaan iyo dadka reer puntlandba kama suurowdo inay dadkeeda ay la dagaalanto dadkeeda inay gumaadaan dadkeeda inay baabi'iyaan horena uma dhicin haddana ima dhicayso waxaan u malaynayaa intii anigu aan joogay oo aan garanayo dagaal noocan ah oo bulsho iska nabdoon guryo iska hurda ama magaalo puntland oo hoobiye la dhaco 30 sano markii ugu horeysay wili ma dhicin waan ka maqli jirnay magaalooyinka khaasatan muqdisho u badan tahay puntland in hoobiye la dhaco waa maalintii ugu horeysay waa taariikh qormaysa waa arrin adag oo u baahan in dib loo milicsado waan ka xunnahay waa wax aad iyo aad u qalafsan laakiin waa ka tacsiyeynayna wili rajaan leenahay wax walba oo dhaca waxaan u baahanaa inaan isdaba qabanno khalad kasta oo dhaca waxaan u baahanaa inaan daba qabanno waxaan halka ugu baaqayaa agaasimihii hore BSF oo runtii isaga walaalkiis aabihiis waqti badan dalkan difaaciisa ka soo qayb qaatay taariikhda cirib dameedka inuu iska xumayn waan u naseexaynayaa dadka puntland qof kasta heerku raba ha jooga waxaa ka weyn bulshada ka weyn sharciga ka weyn dawladnimada ka weyn ma suuroobi karto inuu qof walba yiraahdo meesha aan ka shaqeeyo haddii layga bedelo anaa aad weey weliba dadkii dawladnimada lagu tirinayay oo ku soo dhintay oo waqtiga dheer ku soo bixiyay fal noocaas inuu ka yimaado runtii ceeb bay ku tahay waxaan rajaynayaa inoo aan rabin inaan hoos u daadego wixii dhacay waa wax nagu wada dhacay waa wax naga wada dhacay khaladka iyo eedda waqtigeeda iyo goobteeda leedahay maanta isma eedeynayno maxaa yeelay waa yeelkeennii carruurteennii hooyooyinkeen ayaa waxay fadhiyaan geedo hoostood waxaan rajaynayaa inuu damiirku danqado waxaan rajaynayaa inay bulshadu danqato waxaan ka codsanayaa dadka waxgaradka ah ee hadalkoodu saamaynta leeyahay ee aan hadallada ee dhiilada ah mararka qaarkood ay ka soo yeerayaan inay ka waantoobaan cidna dan uguma jirto waxaan inay caddaynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba dawladdu waa dawlad nabadeed nabad bay doonaysaa dhammaan ciidamada dawladda puntlandna waxaan farayaa inay deegaanada puntland nabad ay kula noolaadaan ay ka sahlaan waxa kaliya ay ka qaban karaan waa cadow meel kale uga yimid arrintan shaqaaqada ee dhexdeeda ka dhacday waxaan qabaa si kale in loo xalliyo waana loo xallin karaa xalkana dawlad ahaan diyaar bay u hayeen wasiirada bil u fadhiya boosaaso shaqo xaruntooda iyo xafiisyadooda ay garow ahaayeen waxaan rajaynayaa in ganacsigii uu furmo waxbarashadii ay furanto dekedii ay furanto aeroboortkii uu shaqeeyo waxaan u ballan qaadayaa
ciidamada hadda gadoodsan ka amar qaadanaya agaasimihii hore waxaan u ballan qaadayaa cid weerarku ah ma jirto cid hadda xal caskari ah rabta inay ku xalliso wixii jiray ma aha waxaan rajaynayaa xal nabadeed oo waxgarad aan dawladdu ahayn ay hormuud ka noqon doonaan in lagu dhammeeyo waan dareensannahay qoonsiga jira iyo arrimaha taagan laakiin waxaan rabnaa inaan bulshada meel kasta ay joogto guda iyo dibadda aan u caddayno inaan haddaan nahay dawladdu diyaar u nahay xal nabadeed oo nooc kasta ah oo ay keenaan inaan qaadan doonno maxaa yeelay xalka maanta wuxuu taagan yahay markii dawladda keligeed ay xalinayso way dhaaftay waxaan u baahannahay isimada iyo waxgaradka iyo dadkii puntland dhista oo wada jira inay waxa jira xalliyaan cidda khaldan qabtaan hadday dawladdu khaldan tahay diyaar baan u nahay inaan qabsoonno haddii qof kale khaldan yahayna in la qabto maxaa yeelay sharciga aan hadda haysanno dadka reer puntland ayaa dhigtay isimada oo dhan waxaan ugu baaqayaa in ay dib u milicsan khaladaad horoo dhacay ama aragtiyo hore oo markaas aan u muuqanayn inay xalkii wax ka keenin yaynan ka daalin waan arkay kuwa i odhanaya marar badan baan baaqno waxbaana laga maqli waayey yaan la daalin waxaan qabaa in arrintaasi ay u tahay maslaxad annagoo dhan xisaabtankeeda waa dambe ayaan xisaabtami doonaa maanta waxaana la gudboon inaan bulshadeennii dib ugu soo celino degaanadoodii inaan nabadda ka wada shaqayno inaan xasiloodada ka wada shaqayno in qof kasta oo reer puntland kaalinta uu leeyahay u qaato waxaan aada iyo aada u rajaynayaa in ilaahay idankiis fariintayda ay gaarto cid walbana ay ku camal fasho xabadaha iyo qoryaha ha la dhigo xasilooni ha lagu seexdo ciidamadu si xasilan ha u joogaan cadowga ku dhex dhuumaalaysanaya si wada jira dadku ha isaga wada qabtaan iyo dawladdu wada shaqaynaya waxaan rajaynayaa arrintaasi waa fariin cad oo runtii dadku ay xisaabin doonaan waxaan farayaa ciidamada dawladda xataa haddii lagu xadgudbo inayn xabad ridin amarkaas ayaan ka siinayaa inta u hoggaansan amarkayga oo dawladda ah weeye inta hadda diidan oo diiday amarkii sharciga ahaa ee dadkan uu lahaa iyagana waxaan rajaynaynaa dadkaa arki doona waxa ay sameeyaan maxaa yeelay haddaan amarkayga ay qaadan lahaayeen waxaa dhacay ma dhaceen marka waxaan rajaynayaa iyaguna inuu caqliga taliyo maskaxdu taliso talada la ogolaado waayeelka la dhegaysto waxaa la soo gudbinayo wax lagu dhiso talada dawladdu iyo aragtida ay leedahay waa midda dastuurka ku qoran waa midda sharciga ah hantida dawladda puntland baa leh sharciga dawladda puntland baa leh qof kasta oo xil dawladda puntland u hayo dadka puntland buu u shaqaynaya markii xilkaas uu ka dhammaado ama iskiis uga tago ama laga qaadana dadka puntland buu ka mid yahay waxaa la rabaa nabaddeeda inuu ka shaqeeyo waxaa hadda ka qayb qaadanaya wasiirro hore xildhibaano hore madax hore oo weli iyagoon xil rasmi ahayn gudanaya inay nabadgelyada iyo ammaanka iyo horumarka qayb qaataan inay xalka u istaagaan waxaan ku rajo weynahay inta hadda joogta magaalada boosaaso ee ku howlan iyo inta maalmaha soo socota ku tegi doonta haddii la yidhaahdo iyo dhammaan dawladdaba iyagoo gacmaha iyo iswada haysta inay arrintaas ka gudbaan ma rajaynayo inay nagu reebto mahadho ma rabo in dib loo milicsado dadka reer puntland waxaa ka mid ah halkudhigyadooda xali dhalay in laga noqdo waxaan soo jeedinayaa xadgudub kasta cid kasta ha geysatay in xali dhalay laga noqdo waxaan rajaynayaa in hore loo socdo waxaan rajaynayaa nabaddii aan ku baraarnay inaan soo celino dabcan taariikhda iyo waayaha iyo xisaabtanku way noo dambayn doonaan waxaa dawladdu ay samayn doontaa baaritaan dhinacyo badan isugu jira taarihii dhashay sababihii dhaliyey iyo cidda ku lug lahayd intaba warbixintaas markuu baaritaan ku dhammaado ayaan la wadaagi doonaa bulshada meel kasta ay joogto xaqiiqada maanta inaan ka warramo ma rabo maxaa yeelay waxaan ka baqayaa wax badanoo xaqiiqa haddaan ka warramo in dadka samadoonka ay xalka ku jira inay caqabad ku noqoto waxaan rabaa dadka samadoonta inay iyaguna xaqiiqada soo ogaadaan wixii ay naga weydiiyaan iyaga u sheegno wakhti aan siino ay ku lafaguraan xaajada meesha taalla iyo xalkeeda waxaan
qaadanayna xal kasta oo ilaalinaya midnimada iyo dowladnimada iyo kala dambeynta Puntland oo ay runtii gartaan waayeelka iyo waxgaradka iyaga oo wada jir ah waxaan insha Allah u rajeynayaa bulshada reer Puntland iyo tan Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba deganaansho xasilooni nabad horumar iyo in Ilaahay uu ka gudbiyo masaa'ibka faraha badan ee jira waxaad ogtiin dalkeena marxalada adag buu marayaa marxalado wuxuu marayaa deganaansho la'aan marxalado wuxuu marayaa xasilooni la'aan siyaasadeed ka jirto wuxuu marayaa marxalado doorasho wuxuu marayaa marxalado abaareed oo runtii Ilaahay aan uga baryayno inuu ka qaado dadka wuxuu marayaa marxalado kala duwan oo dhaqaale oo adag intaasba waxaan u baahanahay inaan uga gudubno annagoo wada jirna annagoo midaysan annagoo ilaalinayna wixii aan ku caanamaalnay ee kala dambeynta ah iyo Puntland jiritaankeeda cid kasta oo caadifad ka duwan Puntland inay sarreyso Puntland inuu sharci ka taliyo Puntland inay dowladnimada ka taliso waxaan ugu baaqayaa inay ka waantoogaan inta cadowga qarsoon ah iyo cadowga maqan ah waxaan rajeynayaa dadka Puntland inay isaga filnaadaan inay ilaashadaan nimcada ay haystaan dad badan baa ogolayn dad badan baa diidan waxaan halka iyagana baaq u dirayaa dhalinyarada ka shaqeysa media iyo dhalinyarada ka shaqeysa media noocihiisa kala duwan hadduu ahaanayo TV-yada iyo raadiyaasha iyo hadduu yahay baraha bulshada waxaan ugu baaqayaa kana codsanayaa inay nabadda ka shaqeeyaan inaysan faafin propagandada inaysan barakicin dadkooda inaysan ku farxin dad dhintay inaysan u arag guul dad ahla oo iyagu gacantooda dib isugu geystay waxaan ugu baaqayaa in loo jeediyo jihaynta dadka in wanaagga iyo nabadda lagu aadiyo laga yareeyo cawaadifta laga yareeyo waxyaabaha keeni kara xanafta maxaa yeelay arrinta tani waa arrin ka dhalatay magaaladeeni muhiimka u ahayd halbowlaha u ahayd ganacsiga dhuuntii Puntland way nin walba way gaaraysaa dhibaatada waxaan ugu baaqayaa bulshada kala duwan kuwa dibadda jiray kuwa dalka joogaba inay mar qura u istaagaan nabadda iyo xasiloonida iyo ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada waxaan diyaar u nahay wax kasta oo dowladdan ay ku hagaagayso inaan aqbalno waxaan diyaar u nahay wax kasta oo dadku ku heshiiyo inaan ku dhaqanno maxaa yeelay shuruucda aan ku dhaqmayno waa shuruuc ka soo fushay bulshada dastuurkeeda iyo qawaaniinta kasoo degtay xeerarka iyo baarlamaanada ay leeyihiin waxaan rajaynayaa haddiina lagu helo wax ka duwan waxa dowladnimada ah eedeeda inaan dhabarka u ridano weliba aan qaadanaan diyaar u nahay waxaan ballan qaadayaa sida dabeecaddeedana lagu bartay ay tahay waxaan ilaaliyaa sharciga waxaan ilaaliyaa horumarka waxaad ogtihiin dowladdan muddadii ay joogtay inay ka qayb qaadatay isbedello badan oo maamulka Puntland ku yimid dhinacyadiisa kala duwan dhinaca amniga waxaad ka warqabtaan magaalada Gaalkacyo oo magaalaha ka mid ah magaalooyinka xasiloonida la'aanta ah markaan nimid oo nabadiid ku badan yahay dowladda Puntland ay ka qabatay waxaad ogtihiin dad fara badan oo ciidamada dowladda ay ku dhinteen lagu laayay saraakiil fara badan ay ku baaba'een dad fara badan oo birmageeda ah lagu dilay maanta waxay ku noolaanaysaa nabad waxay ku noolaanaysaa deganaansho waxa lagu keenay waa dowladnimo waxaan filayaa dowladdu waxtarkeeda dadku ma wada yaqaan laakiin dadka reer Gaalkacyood baa garanaya waxaan magaalada Gaalkacyo tagay iyadoo waxgaradkii ciidamadii cid walba joogtay kala shakisan tahay oo nimankii shabaabka dhexdooda ay kala qaybiyeen oo awood u waayay inay nabadooda sugaan waxa aan ku xalinay inaan dowladnimo annaga iyo isimadii iyo waxgaradkii isla garanay in dowladnimadoo la xoojiyay ay tahay muftaax nabadda waxay noqotay tijaabo fiican oo miro dhashay maanta waxa ay horumarka ay gaartay waxay ku timid wada jirka bulshada iyo dowladda waxaad ogtihiin magaalada Boosaaso muddadii aan nimid in wada jirkii dowladda iyo shacab ka dhashay in xasilooni ay ka jirtay waxaad ogtihiin in horumar ka socday in dekadii ballaarin ku socotay in airportkii ballaarin ku socdo in korontadii ay ballaarin ku socotay in ganacsigii uu kor u kacay waxaasoo dhan waxay ku timid dowladnimo haddii dowladnimada aan diidno waxaa dhacaya waxa maanta dhacay magaaladii oo laga qaxay dekadii oo faaruq ah garoonkii aan shaqaynayn cisbitaaladii oo dhaawac iyo dhimasho dhex yaalaan baaba iyo burbur arrintaas runtii waxa weeye dowladnimadii oo la khilaafay ayaa saldhig u ah waxa daawadeeda ahna
inaan dowladnimada u soo noqonno caqligu u taliyo dadku ay isdaba qabtaan isbeddelka horumareed ee dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada dhinaca amniga ee jira kuma aanan keenin wax kale waxaan ku keennay waa dowladnimo iyo annagoo u hoggaansan inaan bulshadeenna u shaqayno daacad u ah dan kale ka lahayn cid gaara duulaan ku ahayn dad mid sokeeya iyo mid shisheeyaba aanan ugu turayn waxyeellana aan ugu wadnin waxaan ilaalinay in nidaamka dowladnimada la ilaaliyo waxaan ilaalinay in si saxa loo shaqeeyo dabcan dowladda waxaa ka hor imaanaya caqabado waana shay dabiiciya adduunka o dhanna waa ka yimaadaan dalalka ugu waaweyn oo degan ayaa dhibaatooyin noocan oo kale ka dhacay iska horimaayaa dhacaya cid sharciga diidan meelo badan bay ka dhacdaa laakiin inta badan waxaa lagu yaqaanaa dad xag jir ah iyo dad dowladnimada diidan laakiin dadkii dowladda ahaa lagama filayn dadkii ciidanka dowladda ahaa dadkii dowladnimadu tababartay iyo dad shacab ahaa oo runtii qaybo kala duwan ka tirsanaa in manhabaabin darteed iyo caadifad darteed inay dadkooda u baabi'iyaan wax dhici jira maaha waxaan rajaynayaa arrintaas bini aadan waa khaldaba ilaahay baa macsuum ah wixii khalad dhacayaan lagu sii adkaysan raganimo maaha inaad ku adkaysatid khaladaad dowladnimona maaha inaan nidhaahno wax walba ciidan baan ku xallinaynaa waxaan aqbalaynaa xalka nabadda ayaa wax walba nagala weyn horumarka ayaa nagala weyn dowladdan waxay ku sifaysnayd tayeynay tiigsi cid walbaa garanaysa wax aan ka shaqaynayn dad colaadeed maan nahayn dad dadka dhiba maana nahayn dowladdan waa la yaqaana dowlado kala duwan baa soo maray dowlad walbana taariikh bay lahayd dowladdan dowlad horumar ka shaqaynaysa horumar siyaasadeed doorashooyinkii qof iyo codobaa socday isbedello dhaqaalaa socday kuwa maamul baa socday kuwa amni baa socday ciidamada isbeddelkoodu qayb ka mida ayay ahayd waxaan ku faraxsanahay ciidamadii dhabtaha ee b s f inay maanta hawshooda hayaan waan uga mahad celinayaa abaalmarin gaar ah iyo dallacaad aan hadda halka sheegi doonin way heli doonaan waxaad ogtihiin taliyihii guud ee b s f ku-xigeenadiisii saraakiishii hogaaminaysay kulli maanta dowladday ka tirsan yihiin galgalayna dul fadhiyaan iyagoo ka difaacaya ee cadowga inta diiday oo ay la kharaaraatay iyagana waxaan rajaynaynaa inaan dhegaysanno doodooda waxaan rabnaa wixii dhacay inaanan dib ugu noqon waxaan rabnaa bulshada inaan u caddayno inaan nabad doonayno waxaan ugu baaqayaa mar kale ku celcelinayaa dadka reer puntland oo dhan waa inay u istaagaan nabaddan waxaan uga mahad celinayaa isimada meelaha fogfog ka yimid oo mudug iyo sanaag iyo sool iyo caynba ka wada yimid oo u gurmanaya in magaaladaas ammaan noqoto inta halka aan ku arkay inta boosaaso joogta inta ku soo socota waxgaradka oo dhan waxaan leeyahay hawshiina gud isimada jooga oo u horeeyo boqor burhaan boqor muuse waxaan rajaynayaa inuu nabadda sida dhaqanku ah laguna yaqaana inuu nabadda u hiiliyo waxaan rajaynayaa isimadii runtii halkaa jooga oo boqor burhaan u weyn yahay inay nabadda ka shaqeeyaan waxaan ka codsanayaa boqor burhaan waa boqorkaygii waa boqorkii puntland waa boqorkii soomaaliyeed inuu nabadda u hiiliyo haddii shalay bayaan soo baxay dadka qaybtiisa iyo dowladduba ay u aragtay inay khaldanayd macnaheedu maaha in nabaddii inuu ka shaqaynin waxaan ugu baaqayaa inuu nabadda ka shaqeeyo waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno waxaan diyaar u nahay inaan si dhow wada shaqayno dabcan bayaankaa hore dowladdu uma aysan arag waddadii saxda ahayd laakiin uma aragna inuu khalad ahaa waxaan u aragnaa aragti markaas la toosnaatay dhici karto inay tan arkaayeen laakiin u baahnayd in sharaxaad iyo in laysla fariisto ku habbooneed waxaan rajaynayaa wixii ay arkaayeen oo annaga aan noo muuqanayn inaan hadda diyaar u nahay inaan aragno hadday arkayaan waxa aan markaa arkayna wax ka duwan in nalala arko iyaga iyo inta kaleetaba oo xalka la wada qaato waxaan halka uga baaqayaa boqorka beeldaajayaasha ugaasyada salaadiinta waxgaradka dowladda culummada cuqaasha aqoon-yahanka siyaasiyiinta ururada iyo cid walba oo sama jecel inay samaha ka shaqayso nabadda ka shaqayso horumar ka shaqayso waxaan rajaynayaa dadku inay dib u noqdaan dadku guryahooda ku noqdaan taasaan ku baaqaya waxaan diyaar u ahay xal kasta oo nabadda puntland iyo kan soomaaliya ka shaqaynaya khaladaad ka dhacay ma rabo inaan ku noqnoqdo hadalku inuu ila tago ma rabo massajkayga ugu muhiimsan waxa weeye magaalada boosaaso laga bilaabo berri
dhammaan hay-adaha dowladdu inay shaqadooda si dabiici u furaan, iskuuladii la furo, jaamacadihii la furo, dhammaan dadku ay kusoo wada noqdaan goobahooda shaqada, dadkuna guryahooda kusoo noqdaan, dowladduna iyo guddigii loo xirsaaday dadka barakacay sidii ay usoo celin lahayd shaqadooda gutaan. waxaan rajaynayaa guul, waxaan puntland u rajaynayaa deganaanshiya xasilooni, waxaan u rajaynayaa dhacdadan hadda dhacda inay wax ka bartaan oo horumar aan hadda aan la tilmaami karin ay kusii gaaraan. waxaa soo maray dhacdooyin badan puntland, baraaray ka qaaday, waxbay ka barteen, dib dambe ugama noqdaan, tanna tiyoo kale weeye. waxaan rajaynayaa wanaaggeedaan ka fiirinaynaa, dhinaca xumaanta wixii tagay waa tageen, xali dhale baan ka noqonaynaa, caanadaatay dabadeeda la qabtaa, hore baan u soconaynaa, dalka horumarkiisa aan ka wada shaqayno, annagoo gacmaha iswada haysanna, annagoo isku wada caloolfiyow, annagoona waxba go-anayn, dib wax u eegayn, dib wax u milicsanayn. intaas ayaan rabaa inaan hadalkayga kusoo gabagabeeyo. aad baad u mahadsantihiin dhegaysiga bulshada kala duwan ee i dhegaysanaysay. insha allah guul iyo gobonnimo noo rajaynayaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بودكاست سوماليدا تي في وشانل وهلا دتك عن عد كلاهين وباهية هودا وانا بلا شروط فضلا سياد نوغو صوبير تسبسكرايب ده نلنا وذاك فكرة هاجا نونا شيئين نجاه شيئين كله أو لايك صار.